هدمت الحكومة المطعم السابق اللي عند دولة هوس. بعدين احنا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوانا مركله جانالك فديد ميديا. عندي اسكو عشان تهي جانالك سبسكرايب لايك شير ان كومنت. كمل لك فرا هذا لا سocto muuqaalada aan soo gelin maanta waxaan ka hadli doonaa dad qaxootiya ka soo baragacay dalka Yemen oo ka sameystay ganacsi la yimidna hal abuur aad u muhiim ah taasoo ay ka sameeyeen Soomaaliya qaas ahaan maamul goboleedka Puntland. bal ila daawo dadkaas Yemeniinta oo qaxootiga ka soo baragacay dalkoodii sameeyeen hal abuur fiican una sameeyay bulshada ku nool Puntland iyo sida ay ugu faa'iideysteen dadka ku nool Puntland. bal ila daawo wax macaan ama cuntada macaan ee ku sameeyeen halkaas daawo oo sameyso hal abuur fiican waad sameyn kartaa ama la iman kartaa haddii aad fikirto hal abuur fiican meel walba adigoo jooga hal abuur walba aad sameyso lagama yaabo inuu qasaaro mar un oo guuriso doontaa guul bal daawo hal abuurka muhiimka ah. qaayadii ay bulsho badan ku xirneed oo ay aad ka u jeclaayeen waxa saameeyay guryihii dawladdu ay lahayd oo duminta laga waday gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. dadkaas Yemeniinta waxay ka yimaadeen dalka Yemen oo dagaalo badan uu ka dhacay kadibna xirfad shaqo ayay ka sameysteen magaalada Garowe waxaana ay ku dadaaleen in ay shaqaystaan balse waxa saameeyay dumintii la duminayay guryaha. dad badan ayaa isweydiinaya dadkaas Yemeniinta meesha ay ku dambeeyeen iyo halkii ay kala xiriir lahaayeen. halkan ayay durba furteen markii dhismahoodii hore ay ka ganacsan jireen laga burburiyay. waxa ay ku gadaan cunadii lagu yaqaanay ee macaaneed iyo sidii quruxda badnayd oo ay ugu adeegi jireen dadka macaamiisha ee ku xiran maqaayadooda. waa markii ugu horeysay oo aan hadda imaado waxaan jeclahay bal inaan gudaha u galno. السلام عليكم. كيف الحال؟ يا حسين. هدمت الحكومة المطعم السابق اللي عند دولة هوس. بعدين احنا رجعنا غيرنا مطعم الى شارع 30 مانديك لان الشعب الصومالي يحب اكلاتنا. waxaana saameeyay burburintii iyo la wareegidii dhismayaasha dawladdu ku lahayd magaalada Garowe oo meheradiyadu waxa ay ku taalay goob ay dawladdu lahayd. intaa kadib waxaan meheradiyadii u soo bedelay halka ay ku dhamaato wadada jidka Sodonka. maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed waxay aad u jecel yihiin cuntooyinkayaga sidaas darteed halkan ayaanu u furnay oo aan ugu diyaarinay dhammaan cuntooyinkii macaana ee ay nooga barteen. وهذا اللحم الهلب المندي فرحان الآن بياكل واحد هلب. وأهلا وسهلا بأصحاب الصومال بأهل الصومال. isbeddel ku yimaada noloshooda awgeed ayay goor walba u taagan yihiin in ay joogto u shaqeeyaan si ay wax soo saar wanaagsan u helaan ugana gudbaan marxaladihii